in ka badan 5 qof ayaa ku geeriyootay tiro kalena way ku dhaawacmeen dagaal shalay ka dhacay degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool. Dagaalka ayaa bilowday kadib muran soo kala dhex galay askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee ku sugan degmadaasi. sidoo kale wararka ayaa sheegaya xaaladda guud ee degmada Ceelbarde in ay haatan tahay mid aad u cakiran. waxaa jiro dhaqdhaqaaqyo ciidan oo looga soo sheegayo xadka uu gobolka Bakool la wadaago Itoobiya. dagaalka shalay ka dhacay degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool ayaa ku soo aadaya xilli maalmo ka hor uu magaalada Baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo dagaal ku dhex maray ciidamo ka tirsan xoogga dalka iyo daraawiishta Koonfur Galbeed kaas oo sababay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac.